متأملا في قدرة الرحمن على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، إلهي إذنك إن شاء الله تعالى inta ramadaanka lagu dhex jiro waxaan ku talagalnay inaan laba kitaab oo caqiida halkan ka akhrino. kitaabka koobaad waa nadm ibn abi daawud fi alcaqiida fi caqiidati ahli الsunna waljamaaca oo loo yaqaano alxaa'iya. kitaabka labaadna waa caqiidatu asxaabi alxadiid oo iska leeyahay abi cuthmaan الصابوني calayhi raxmat ullah waraxima allahu alculamaaa jamiican. labada kitaab ayaan geli doonaa. marka hore xaa-iyadan ka horeyn doonaa insha allahu tacaala dhowr jalso inaan ku dhammayno, kadibna caqiidat salaf wa asxaabi alxadiid inaan markaa kadib raacino. dabcan cilmiga dalbidiisu iyo barashadiisu ahmiyad badan ayuu leeyahay. mana sinna ruuxa cilmiga sharciga raadinaya iyo ruuxa aanan cilmiga doonaynin. alla subxaanahu wa tacaala isku mansilo marnaba ma dhigin. yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat. alla subxaanahu wa tacaala wuxuu sare u qaaday dadka ahlu cilmiga ah. aayad kalena waa isagii ku lahaa qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. kuwa aqoonta leh iyo kuwa aan aqoonta lahayn ma isku mid baa? miyay siman yihiin? ma isku mansilo iyo isku daraja? ma sinna. walidaalika qofku inuu istixdaarsado ayaa loo baahan yahay. cilmigan la baranaya inuu yahay nuur alhidaaya, in wixii hagi lahaa qofka noloshiisa iyo xayaatadiisao dhan wixii hagi lahaa inuu yahay diinkani iyo cilmigani. alla waa isagii dhahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waaaminuu birasuulihi yu'tikum kiflayni min raxmatih wayajcal lakum nuuran tamshuuna bih. kuwa iimaanka laga helay buu alle la hadlayay, diinka rumeeyeen, kitaabka marka raaca ayaa lihi. maxaa yeelay alle subxaanahu wa tacaala wayajcal lakum nuuran tamshuuna bih, nuur aada ku soconaysaan oad iftiinsanaysaan oo idiin kala bayaaninaya khayrka iyo sharta, xaqa iyo baatilka, madaahibta saxda iyo madaahibta aan saxda ahayn. nuur idiin bayaaninaya ayuu alle subxaanahu wa tacaala idiin yeelaya. waa markii qofka uu diinka doorto. aayaddii kale nafsa siyaaq ku timid faaladiina aamanuu bihi wacazaruuhu wanasaruuhu waاtabacuu الnuura aladii unzila macah. kuwa raacay nabiy llaahi moxamed calayhi الsalaatu wassalaam ee u gargaaray oo garab siiyey waاtabacuu الnuura aladii unzila macah, raaceen nuurkii lala soo dejiyey oo qur-aanka iyo sunnada ah. ulaa'ika hum اlmuflixuun, macnaha kuwa liibaanaya ee hagaagaya ee adduun iyo aakhiraba falaax ku dambaynaya waa kuwa noocaasa ee nuurka raacaya. walidaalika nuur alhidaaya waa nuurkan cilmiga ah. waa markan aan ku ducaysanayna salaada aan leyna ihdina asiraata almustaqiim. siraadka mustaqiimka suu ku imaanayaa hadduusan qofku cilmi ulahayn, hadduusan raadinin ariiqi cilmiga marnaba ma imaan karo. walidaalika cilm alcaqiida waa culuumta cilmiga ugu sharafta badan wayaa la yihahdaa. nuurka aan sheegaynay cilmiga laga helaya ama meesha laga helaya cilm alcaqiida ayaa asal u ah. maxaa yeelay wuxuu ku tacalluqaa, waxay dhahaan cilmigu sharaftiisu waxaa lagu ogaadaa bisharafi lmacluum, qofku waxa uu baranayo. cilmigani wuxuu ku tacalluqaa allah subxaanahu wa tacaala, daatadiisii, asmaadiisii, sifaadkiisii, afcaashiisii buu ku tacalluqaya. waa cilmi marka jaliila yatacallaq billahi tabaaraka wa tacaala. walidaalika wuu ka ahmiyad badan yahay akhlaaqda iyo qiyamka dadka la leeyahay loo hagaajiye. waxaa ka awleysan caqiidada. cibaadaadka oo dhan waxaa ka awleysan oo ka mudan caqiidada. mucaamalaadka iyo ganacsiga qofku ma xalaal iyo xaaraan suu ku kala ogaan lahaa waxaa ka awleysan oo ka mudan barashada caqiidada. waxaana tusinaya faclam annahu laa ilaaha ila allah wastaqfir lidanbih. nebi moxamed ayaa la amray sal ly slam baro oo ogow ilaah xaq lagu caabudo inuusan jirin allah jala jalaaluhu ma ogiye. kadib ayaa waxaa la amray camalkii wastaqfir lidanbik. min huna imaamu albukhaari calayhi raxmat ullah watuu odhanayay baabu lqawli muxuu ahaa baabkii baabu alcilmi qabla alqawli waalcamal. baabun wuxuu baab yahay alcilm, inuu qofka cilmi u lahaado uu maxaa la yidhaha wax barto
cilmiga marka muxuu ka horeeyaa qabla alqowl. intaadan wax fatwoon, intaadan wax ku hadlin, intaadan wax sheegin, waxaa ka horeeya inaad cilmi ulahato. walcamal, intaadan camal samaynin oo cibaadaad, soon, salaad, xaj, zaka intaadan la imaanin, waxaa ka horeeya alcilm. faclam, halkaas uu daliilsaday imaamu albukhaari calayhi raxmat ullah. walidalik mucaad radia allahu canhu markii loo diray magaaladii yemen, markii loo diray maxaa lagu yidhi falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah. ha noqdaan waxa ugu horeeya aada dadka ugu yeerto in ilaahay subxaanahu watacaala keligii la qiro. riwaayaadka qaarkood waxaa ugu ku sugnayd calaa an yuwaxidu allah. ha noqdaan waxa ugu horeeya aada dadka ugu yeeraysa tawxiidka, waxdaaniyada ilaahay ha noqdaan ayaa lagu yidhi mucaad radia allahu canhum. rusushii ilaahay uu soo diray o dhan oo nabiyullaahi moxamed uu ka mid yahayna nafsa siyaaq waxaa la wada bari jiray, caqiidadan ayaa loo hormarin jiray. wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun. ma jira ayaa la yihi rasuul aan soo dirnay ilaa waxaan u waxyoonaynay alle xaq lagu caabudo ma jiro, allah jala jalaaluhu ma ogi. bimacnaa waxdaaniyadii iyo caqiidadii in ay maxaa la yidhaahdaa waxyiga ugu horeeyo oo lala soo diri jiray sidaa ayay ahayd. waxaa tusinaya ahmiyadda cilmigan. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam maka meequ ku nagaaday? meeqo sano? meeqo? 13 sano soo maaha? 13kaa sano soon iyo salaad iyo zake iyo xaj miyuu ka sheekeynay? maya. intaas oo dhan wuxuu ka sheekeynayay caqiidadii ayuu taqriirinayay. faraa-isha iyo axkaamta badankeed bal haalabiyataha waxay soo degtay fii waqti madiina marka la joogo oo hijradii ay bilaabatay ayay soo degtay. wixii ka horeeyey 13kaas sano nebiga wuxuu ku mashquulsanaa sal ly slam, uu xooga gelinayay in ilaah keligii la caabudo, alla la barta jala jalaaluh, asmaadiisa, sifaadkiisa. maxaa yeelay qofku marka uu iimaaniyaadka iyo caqiidada uu ka dhismo, markaasu waa maxay cibaadaadka kale iyo wixii kale u sahlanaan karaa. laakiin qof isagiiba hashkateynaya ee waa maxay maalinba meel ku yaacaya. weliba hadda zamankani waa bateen sooma afkaartii munxarifka ahaa, waa laisku soo dusinaya. islaamkiiba waa maxay intaasoo afkaaro aan sax ahayn dhex yaacayaan oo dhex boodeen. walidaalika in caqiidada liska ogaado waa daruuri. ahmiyadda caqiidadu ay leedahay haddaa intaan uga baxno, kitaabkan aan gelayno waa maxay xaa'iyat ibni abi daawuud. wuxuu ka mid yahay min awaa'il nadmigii ugu horeeyey ama manduumaadkii gabayadii ugu horeeyey ee caqiidada laga alifo. culimmadu waxay samayn jireen cilmiga sharciga ah, way soo ururin jireen calaa shakli gabay ayay ka dhigi jireen si ay u sahlanaato in la xifdiyo, macluumaad badanna meeshaa loogu soo aruuriyo. gabayadii ugu horeeyey oo marka cilm alcaqiida laga sameeyey ayuu ahaa kitaabkan xaa'iyat ibni abi daa-uud. abyaadeeda ama gabayadeeduna waa yaryihiin oo 33 beyt waay, aad bay u kooban yihiin, laakiin cilmi fara badan ayaa la dhex dhigay oo laga yaabo waqti badan inuu naga qaato. caqaa'idka nadmiga ee ugu dhaadheer waxaa ka mid ay dhahaan nuuniyada ugu dheer, nuuniyat ibn alqayim oo ilaa 600 beyt ku dhadhow ayaa taqriiban ugu dheer. nadmiga kale oo caqiidadana inahaasay udhexeeyaan. marka manduumaadka ugu yar uguna horeeyey oo cilmi alcaqiida laga alifo ayuu ahaa. imaamka alifay waxaa alifay abu bakr cabdillaahi bni sulaymaan ibn alashcath assajistani raximahu llahu tacaala. ninkaa ayaa alifay. waa wiil uu dhalay imaamkan macruufka ah ee shahiirka ah abi daa-uudkan sunanka iska leh, sunan abi daa-uud wiilkiisii weeye ninka alifay manduumadan. wuxuu dhashay, waa mutaqadim dabcan, waqti hore waay, waa kutubtii ugu horreysay marka aan leenahay. waxaad ka dareemaysaa wuxuu dhashay 230 hijriga markay ahayd. meeqaa laga joogaa hadda? 1200 sano soo ma ayaa laga joogaa. 1200 sano ka hor ayuu dhashay, 12 qarni taqriiban ayaa laga joogaa. marka uu dhashay kacaadati ahli lcilm wuxuu ahaa imaamku bildaanta ayuu tawaafay. marba magaaluu tegayey isagoo markaa cilmigii raadinaya. sida tan hadda waa maxay cilmigii aanba loo dhaqaaqaynin oo aan la dalbayn maahe. zamankii hore himamku caali bay ahaayeen. wuxuu qofku ka dhici jiray magaalooyin fogfog uusan weligii arag. laakiin maanta magaalooyinka fogfog dalxiis baa loo tagaa soo ma dalxiis unbaa loo aadaya, laakiin qof cilmi u aadaya inuu yaryahay ayaad moodaa.
ومن هنا waxay ka wariyaan nin wuxuu ahaa himadiisu cilmiga aad u sareyso magaalada Kuufa ee Ciraaq ayuu soo galay bal isagoo طالب العلم ah lacag badan ma wadan wuxuu wataa hal dirham buu watay bal تصور waadigo maanta hal eero lagu siiyo lagu yiri Kuufa Ciraaq u doona cilmi maxaad ku qaban lahayd waa fakiray imaamkan Abu Bakr Abdullah ibn Sulaiman ibn al-Ash'ath halka dirham muusan beer dareenin wuxuu ku soo iibsaday way dhaheen 30 mud oo markaa baaqilaa oo markaas waa waxyaalihii fawaakihdi markaa la cunayay way geed la cuno way baaqilahaas buu ku soo gatay baaqiluhu noocu yahay uu garan mayo laakiin in la cuno ma garanaya 30 mud ayuu ku soo gatay maalin walba waxoogaa uu ka cantoobsan jiray ayuu cuni jiray bishii baa u dhamaatay waa 30 mud ileen moogtahay marka wuxuu rabaa inuu tijaabiyo bisha raashinku cunayay bal wax u dhigmo cilmi inuu faa'iideysto anagu raashinku waa iska daldalnaa waa iska cunnaa waxaan soo kordhinina ma badna ragii hore waxay dhihi jireen ninku wuxuu cuno ciidamiya Soomaa hadda waxa weey waa la cunayaa laakiin ciidamis ma jiraba ruuxii wuxuu soo kordhinay wuxuu taray ma laha walidalika ibn abi daud bishii markay u dhamaatay baaqilihina uu ka dhamaaday raashinkii meesha u yaalay wuxuu yiri waxa ii xasilmay 30000 xadiis 30,000 oo xadiis ayaan bartay 30,000 oo xadiis ayaan bartay 30,000 maalintii ma ku baranay waa 1,000 Soomaa maalintii 1,000 xadiis ayuu ugu talagalay baaqilaha uu cunayay meel cidlaa kuma dhicin Soomaa walidalika himadiisu waxay tusinaysaa cilmigani uu soo rarayo inuusan ahayn si sahlane cilmi dib loo soo maray waqti badan la geliyay ayaad ka dareemaysaa culimadii soo naqlisay mashaayikhdiisu mashaayikh caan ayay ahaayeen culimadii ama aimadii mashaaikhdii Imaam al-Bukhari ay wax ka qaatay sunanka saxiixa wax uga wariyo sida Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali Muhammad ibn Bashar Bundar Muhammad ibn al-Muthanna Ahmad ibn Salih culimo waaweyn oo ajilla oo saxiixaynka sunankaba ahadiisooda lagu soo saaray ayuu cilmiga ka qaatay oo ma ahayn cilmigiisi cilmigan maanta Sheikh Google-ka hadda Sheikh Google baa jira Soomaa halkaas baa la gelinayaa halkaas cilmigii ka soo saaray waa sheekh weyn baninkii waligi caalim ma fadhiisan waligi kitaab ma laqbaysanin marka mashaakilkaasi waagi hore ma jirin hadda laakiin mashaakilka jira qayb ka tahay cilmigu waa diin wa walidalika diinta waxa la unzuru amman ta'khuduna diinakum diinta cidaad ka qaadanaysa iska internet diin ma noqonayo sheekhna ma noqonayo walidalika cilmigii hore wuxuu ahaan jiray qofku culimo la yaqaan inuu lahaado uu yiraahdo culimadeedu waa hebel iyo hebel ayaan la fadhiisay intaas oo sana u xereeyay duruusta iyo cilmiga ka soo qaatay laakiin meelahan ka bowsaday ma noqonayso arin sax ah talaamidiisi ardaydiisu sheekhan kitaabkiisa aan akhrinayno waxa kamid ahaa culimo waaweyn buu soo saaray maadaama asna culimo waaweyn wax ka bartay ardaydiisu waxay ahaayeen arday wax gala waxa kamid ahaa ugu caansana al-Imam Abu Abdullah al-Hakim saaxib al-Mustadrak ayaa kamid ahaa ardaydii uu soo saaray ninkan kitaabka iska leh waxa kamid ahaa ardaydiisii al-Imam ad-Daraqutni ayaa kamid ahaa saaxib as-Sunan ayaa kamid ahaa ardaydiisii waxa kamid ahaa Ibn Shahin iyo Ibn Battah oo culimada iyagana waaweyneed oo xataa kutub al-aqaa'id sida Ibn Battah kitaabkiisa al-Ibana kitaab caana weeye culimadaas soo saaray waxa kamid ahaa ardaydiisii Abdurrahman ibn Abi Hatim oo cilmigan al-jarh wa at-ta'dil ragii baaca dheer ku lahaa ayaa kamid ahaa ragii uu soo saaray oo ujeedan marka ma aha intaas waxaan u wadnaa kitaabka horta iyo sheekhiisa in la fahmo inuu san ahayn kitaab iska dhayal oo cayaar ah ama kitaab iska fudud oo sahlan kitaab qiimo ku fadhiyo islaamka ugu fadhiyo sheekha qorayna sheekh weyn oo caalima uu yahay ardaydii oo soo saarayna ay yihiin culama al-islaam inay yihiin caqiidadiisu waxaan ka ogaan doonaa kitaabkan waa caqiidat salaf ayuu ku socday iyo asxaab al-hadith ayuu ku socday walidalika أئمة بدن أي عقيدة كشكيان ابن القيم أي كمدها وحير وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة المثلى هما نجمان ابن أبي داود أي أماني إنه أها إمام ولبا إنا إمامه وأبي سنة إمام كلا أيها ولبا الرالي اللي جايها وإمام مرتضى ومحي عند أهل السنة أئمة لقدرية ولا تبجيلية أي كمدها
kitaabkiisana wuu ammaanay oo wuxuu yidhi tasniifkii uu qoray ee gabayga ahaa ama kuwa kale ee nadmiga ah aan gabayga ahaynba waa maxay sunnadii ku socdeen sunnada ayay ku socdeen ayuu tilmaamaya bimacnaa calaa caqiidati ahli sunna inuu ku socday ayuu tilmaamaya. intaasi waxay ahayd waa caqiidadiisii, waana u tegi doonaa. waxaana shaahid u ah markuu kitaabkan qoray ayuu wuxuu yidhi hada qawlii wa qawlu abi wa qawlu ibnu xambal. kitaabkan ama caqiidadan aan meesha ku qoray waa waxaan aaminsanahay, waa wixii uu aabbahay abi daa-uud saaxib asunan uu aaminsanaa, waa waxa imaamu axmed ibnu xambal uu aaminsanaa. weliba intaa keli muusan dhihin waa qawlu man adrakna min ahli lcilm, ahlu cilmigii iyo culimmadii salafka aan soo gaarnay caqiidadoodii weeye ayuu yidhi. iyo wa qawlu man lam nudrik min ahli lcilmi miman balaganaa canhum, iyo dadka aanan soo gaarin oo ahlu cilmiga ah laakiin uu warkoodiina soo gaaray oo naloo kaga khabray inay caqiidadan aaminsanaayeen ayaa naloo sheegay. markaasu wuxuu yidhi faman qaala calaya gayra dalika faqad kadab, qofkii sidaas si aanan ahayn iga sheega been buu sheegay, way igu been abuurtay. bimacnaa caqiidadeydu waa waadix, waa la yaqaanaa, qarsoodina ma lahan ayuu tilmaamay. taa waa xaggii caqiidada. madhabkiisa fiqiga ah culummadu waa isku yara qabteen, mashaafici buu ahaa mase xambali buu ahaa. culamaau shaaficiya waa tirsadeen oo kitaabka طabaqaat الshaaficiya ibnu subki waa ku dareen, culamaa shaaficiya ku dareen inuu ka mid yahay. xanaabiladuna waa tirsadeenoo طabaqaat alxanaabila ayay ku dareen. laakiin marka la celceliyo wuxuu u badan yahay xagga fiqiga inuu madhabka uu ku socday, xambaliga inuu ku socday ayay u badan tahay. ayib, culimmadu weligood waxay soo maraan mashaakil iyo itihaamaad iyo tuhmooyin ayay soo maraan. imaam axmed baa soo maray, imaam maalik baa soo maray, imaam shaafici baa la sheegaa. weliba imaam shaafici fitnadii uu ku dhacay fitna lamid ah ama ibtilaagii mid lamid a ayaa laga soo wariyaa in lagu ibtileeyey ibni abi daa-uud. waxaa lagu tuhmay in uu caqiidaysan yahay caqiidat annasbi waalcadaa, nimanka ahlu beytka in uu cadaawad u qabo, oo cali iyo radia allahu canhu ahlu beytka inuu necab yahay ayaa laga faafiyey. warkaasina war sax ah oo jira ma ahayn. walidaalika talmiidkiisii axmed ibni yuusuf ibn alasraq ayaa wuxuu ka wariyey ibni abi daa-uud, wuxuu leeyahay ummadda oo dhan waan iska cafiyey ilaa cidda caqiidadayda tuhuntay oo igu sheegtay inaan saxaabadii nebiga sal ly slam weliba ahlu beytkiisa gaarka ahi aan necbanahay oo aan cadaawad u hayo, cidda igu tuhuntay marnaba cafin mayo. maxkamadda qiyaamo ayaa la tegahayaa ayaa laga wariyey inuu yidhi. waxaana caddaynaya inuusan caqiidadaas marna aaminsanayn. kitaabkiisan cali radia allahu canhu aad buu ugu ammaanay markuu saxaabada ka hadlaya waqul khayra qowlin fi saxaabati kullihim marka uu waday wuxuu ka hormariyey waraabicuhum khayru lbariyati bacdahum caliyun xaliifu lkhayri bilkhayri munjixu. way noo imaan doontaa. waxaa afareeya khulafada cali ahaa khayru lbariya, midka ugu khayr badan makhluuqaadka iyo dadka oo dhan midka ugu khayr badan marka laga reebo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan. marka laga reebo ruuxa afareeye ugu khayr badan dadka cali weeye. weliba caligii weligiiba khayrka uu la socday oo xaliifka la ahaa, meesha uu maraba waa maxay khayr ayaa ka dhalanaya. sifaadkaas qiimaha badan ayuu ku tilmaamay. waxaa jira nusakha qaarkood gabayo dheeri ay ku daraan. gabayadaas annaga hadda midka aan ku soconno inoo qori maayo. wuxuu ka hadli doonaa khadiija, caaishuu ka warrami doonaa, sibtay maxaa la yidhaahdaa faatima iyo faatimuu ka warrami doonaa. ahlu beytkii qeyb badan oo ka mid a ama zawjaadkii nebiga ha ahaado ama ha ahaadaan ayuu ka warrami doonaa. marka tuhmadaasi waxay ahayd tuhmo maalaa yacni ah oo aanan sax ahayn ee lagu been abuurtay ee imaamka laga sameeyey. sidaan u tegi doono imaamu albukhaari calayhi raxmatullah mas'alada ugu soo horeyso mas'alatu sifat alkalaamka, aimadu weligood saasa wax looga been abuur looga samayn jiray. marka been abuurkaas ayaa laga sameeyey imaamka. imaamku wuxuu ahaa imaam aada loo ammaanay, faqiih ayuu ahaa, caalim ah, weliba cilmulxadiidka baac dheer ku leh oo axaadiis badan xifdisan, hiqa oo waa maxay ragga lagu kalsoonyay ayuu ka mid ahaa. ilaa imaamu dahabi uu ka yidhi kana min buxuuri lcilm, badaha cilmiga ayuu ka mid ahaa. bimacnaa cilmi weynankiisa bado ayuu ahaa, bimacnaa fannigu u dhaqaaqaba wuxuu u ahaa ahal ayuu u ahaa. ilaa uu ka yidhi xataa ana bacdahum fadalahu calaa abiih, ilaa ay gaarsiiyeen qaarkood
inay aabihii ka saramariyeen abi daa-uudka iskale sunanka iyo isaga wiilkiisa in wiilkiisa la saramariyo oo la yidhaahdo min xayثu alcilmi wاlmanzila waxaa fadli badnaa ibni abi daa-uud oo wiilka ah ayaa fadli badnaa ilaa ay culimo badan ay sidaa ku tageen. marka nin jalaaladiisu ay aada u weyn tahay ayuu ahaa. wuxuu geeriyooday imaamka ibni abi daa-uud sanadu markay ahayd 316 hijriga 316 hijri 316 markay ahayd ayuu geeriyooday. dadkii ku tukaday khalqi aada u weyn baa ku tukaday. walidaalika waxay dhahaan imaam axmed yaa laga soo wariyay baynana wa baynahum yowm اljanaa-is. nimanka ahlu bidaca waxaan ku kala baxnaa maalinta geerida, maalinta janaazada ayaa lagu kala baxaa oo bimacnaa ahlu sunnahana ummadoo dhan baa jecel oo khalqi fara badan ayaa janaazadooda raacayso, baynamaa ahlu bidaca inuu dhintay in kale aan la ogeyn oo afraad ay raacayso. walidaalika imaamkan markuu geeriyooday waxaa la sheegaa inay ku tukadeen 300,000 insaan, 300,000 oo qof iyo ka badan baa ku tukatay. fadliga iyo mansilada iyo sida uu caan uga ahaa cinda annaas oo ilaahay qabuul loogu gelay. maxaad filaysaan 40 buu ahaa xadiiska soomaaliya qofkii ku tukata oo u shafaaco qaadaya 300,000 300,000 ayaa la wariyaa iyo ka badanba in lagu qiyaasay dadkii ku tukaday. kitaabkan aan halkan ka akrinayno ficlan ma isagaa qoray mase waa kitaab dusha laga saarayo oo sheekha uusan qorin. marar badan waxaa dhacda in la yidhaahdo kitaabka culimmadii aqdamiintii ay qoreen ma laha isaga, waxaa weeye magaciisa waa un lagu qoray meesha. taariikh baa meesha taalla iyo kutub oo waxaa arrimaha ka mid a marka laga sheekeynayo abilxasan alashcari iyo taraajucaadka uu sameeyey iyo kutubtuu alifay iyo inkiraad badan ayaa jirto inaan culummadu aysan kutubo badan oo caqaa'idka ku saabsan weliba culamaa shaaficiya bidaat in laga inkiro. laakiin kitaabkani kitaab la inkiri kara ma aho. abu yacla ayaa طabaqaat alxanaabila ku sheegay in uu iska leeyahay ibni abi daa-uud. imaamu dahabi kitaabkiisa siyara aclaami nubalaaga wuu ku sheego wuxuu yidhi hadihi caqiidatun mutawaatiratun can naadimiha. caqiidadani ama gabaygani qasiidadani waa gabay mutawaatir uga timid. mutawaatir waxaa laga wadaa khalqi fara badan ayaa kasoo guuriyey, hal ruux kama soo warinay, khalqi fara badan ayaa kasoo guuriyey. rawaaha alaajuri, imaam alaajuri ayaa wariyey wasanafa laha sharxan, wuxuuna kitaab sharaxa ayuu ka qoray. sidoo kale wuxuu imaam dahabi uu sheegay abu cabdillaahi ibni batata fi libana, kitaabka libana inuu ku sheegay ibnu bata in kitaabkan uu qoray ibni abi daa-uud. sidoo kale asafarini ayaa sharax saaray. kutubta ahlu cilmiga ee aqdamiinta ah waxaa lagu yaqaanaa miisadoodu sanad bay ku socdaan, xaa-iyadani waa gabay. gabaygana marka laiska naqlinayay wuxuu ku yimid xadahanaa saasuu ku yimid iyadoo tusinayso misdaaqiya, bimacnaa waxaana inay wax dhaba tahay, uusan sanad daciifa uusan ahayn, rag lagu kalsoon yahay inay soo wariyeen. asaaniidda la sheegay waxaa ka mid ah imaamu dahabi inuu yidhi anshadanaa abulcabaas axmed ibni cabdilxamiid, ninkaasaa inoo gabiyey buu yidhi. qaala anshadana alimaam abu maxamed ibni qudaama, ibnu qudaamihii macruufka ahaa ayaa gabaygan inoo akhriyey sanadku markuu ahaa 618 hijriga ayuu inoo akhriyey buu yidhi. qaala akhbaranaa faatimata bintu caliyin alwaaqiyaani, gabadhaa faatima la yidhaahdo ayaa gabaygan inoo akhrisay. halkaa waxaad ka dareemaysaan mashaaikhdii iyo culummada inay gabdho ku jireen sooma bal waxaa la sheegay imaamu shaafici culimmadiisa inay haweeney ka mid ahayd, imaam axmed sidoo kale, ibnu xajar inuu maxaa la yidhaahdaa uu ka wariyey dumar badan wax ka bartay, bal maxaa la yidhahdaa culummada qaarkood ay soo naqliyeen ilaa 1,000 iyo ka badan 1,080 ilaa 1,070 tarjumo oo dumar siiradooda laga sheekeynayo caana. culummada qaarkood tasniif mujallad kaamila ayay waxay ka alifeen dumarkii waa maxay warin jiray cilmiga laga qaadan jiray. dumar baa waxay u fadhiisan jireen boqolaal dada cilmiga ka qaadan jireen. hadda zamankan waa sidii waa dhammaaday sooma lama hayo. laakiin waxaan haynaa dumar ku hayo professoraan nahay iyo waxaa weye jaamacadaha wax ka dhignaa iyo collegean wax ka dhignaa. wax hadda westernka laga soo gaaray ma ah. culimmadii islaamka way lahaan jireen iyo waa maxay dumar taariikhda intaysan reer galbeedku aysan taariikhdan qorin kutubtay ka buuxdaa oo ma jiro saxiix albukhaariga haddaad furto dumar baad ka dhex helaysaa. bal naqalada saxiix albukhaari soo naqlisay dumar baa ku jiray oo soo gudbisay.
wahaakada culummadu waxay ahaan jireen rag iyo dumar midna ma lahaan jirin, qofkus meeshuu isdhigo un bay ku xiran tahay iyo halka uu asaga uu ka raadsado adduunyada iyo mansilada. marka wuxuu leeyahay akhbaranaa faatima binti caliyin, gabadhaas ayaa gabaygan inoo akhrisay. qaala akhbaranaa caliy bni bayaan qaala akhbaranaa caliy الطanaajiri qaala xadaanaa abu xafsin ibni shaahiin. abu xafs ibni shaahiin marka waa ardaygii ibni abi daauud wey, ardaygiisii wey. qaala wuxuu yidhi anshadanaa abu bakr ibni abi daauud, ibni abi daauud ayaa noo gebiyey linafsihi hadihi اlqasiida, isagaa gabayga alifay oo qasiidadani inoo sheegay. sanadka iyo silsilada ayuu ku yimid gabayga. alaajuri wuxuu tilmaamay isna raggii kitaabkan sharxay ayuu ka mid yahay. amlaa calayna abu bakr ibni abi daauud, wuxuu inoo yeeriyey buu yidhi. waagii hore cilmigii waxaa hadda qalimaan badan uma jeedo, waagii hore qalimaan baa jiri jirtay, waa la qoran jiray waxa maxaa la mulaaxadaadka, waxa laisku yeerinaya sheekha wixii ka soo baxo. marka wuu yeeriyey buu yidhi amlaa calayna abu bakr ibni abi daauud fii masjidi rusaafa fii yowmi اljumca, weliba goobtii loogu yeeriyey buu sheegay annagoo rusaafa masjidka la yihahdo joogno, maalin jimcahana ay tahay, maantana waa jimca sooma waa iswaafaqday, haha maalin jimcaha iyadoo tahay ayuu inoo yeeriyey buu yihi li5 baqiina min shacbaan, iyadoo bisha shacbaan ay 5 ka dhimantay, inagu shacbaan hadda ka baxnay, ramadaan baa 3 inoo ah soo maaha. sanata 309 markay ahayd sanadkii 309 hijriga, waa intuusan dhiman qablaha biacwaam, imaamka intuusan dhimanin dhowr sano ka hor ayuu inoo yeeriyey buu yidhi gabaygan. walidaalika culimo badan ayaa sharaxday, waxaa ka mid ahaa culimmadii sharaxday asafarini sharax aada u qiimo badan oo lagu magacaabo lawaaix alanwaar الsaniya walawaaqiح alafkaar الsuniya sharx qasiidat ibni abi daauudin alxaa'iya fi caqiidati ahli اlaahaar الsalafiya. waa kitaab risaala dictoraa lagu qaatay oo la taxqiijiyey ayaa lagu sharxay. kitaabkan maca anahu uu yar yahay 30 iyo dhowr beyd uu yahay, laakiin waxaa ka horeyso inaan fahno ahmiyadda iyo qiimiga uu ka joogo cinda ahli اlcilm, markaasuu kitaabku qofku wasan ama macno u samayn karaa. qaala raximah اllahu tacaala tamasak bixabli اllahi wاtabic اlhudaa walaa taku bidciya lacalaka tuflixu wadin bikitaabi اllahi wالsunani alatii atat can rasuuli اllahi tanjuu watarbaxu. wuxuu ku bilaabay imaamku inuu marka hore uu salka u dhigo masdar atalaqi cinda ahli الsunna, ahlu sunnaha xaggay wax ka qaataan, caqiidada iyo diinku xaggay kala dhex baxaan, ma qiila waqaala buu ku dhisan yahay warkooda, ma caqliga iyo waxay ila tahay buu ku dhisan yahay, mase daliil iyo wuxuu ku dhisan yahay aaya min kitaabi illahi iyo qur'aan iyo sunna ku dhisan yahay. taasuu rabaa inuu tilmaamo masdarka talaqiga cinda ahli sunna inuu yahay alqur'aanu wasunna, qur'aanka iyo sunnada ayaa wax laga qaataa. waxaa la raaciyaa oo usan inoo raacin ijmaacu ahli اlcilm, culimmada ijmaacooduna waa maxay, waa laga qaataa. lianna alumma laa tajtamicu calaa dalaala, ummadani muxamadiyada baadi kuma kulanto, kuma heshiiso. walidalika sabiila almu'miniin marka laga hadlaya la raacayo waa sabiilkii ahli اlijmaac. waman yushaaqiq الrasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhudaa wayatabic gayra sabiili اlmu'miniina, qofkii raaca ayaa lihi wadada mu'miniinta wadda aanan ahayn, bimacnaa wadada mu'miniinta o dhan ay ku heshiiyeen ahlu sunnaha, qofkii khilaafa ayaa laga wadaa. marka ijmaaca ahli sunnahana waa xuja, muxuu ka mid yahay min aqwa alxujaj ayuu ka mid yahay. qur'aanka iyo sunnadana way daliilsanayaan, saddexdaas ayay daliilsadaan, bimacnaa qiyaas meesha kuma jiro. waxay ila tahay iyo saasaan uga qiyaas qaatay iyo fiqiga ayaa lala aadaa iyo furuucda iyo halkaas ayaa loo daliilsadaa. laakiin markii la joogo baab alcaqaa'id, baab alusuul, masaa'il addiin marka la joogo qiyaas ma galo, mana looga qiyaas qaadan karo in maxaa la yahay qofka uu qiyaas la yimaado. wuxuu leeyahay tamasak qabso. beydka ugu horeeya sheekhu wuxuu ku kulmiyey 3 dardaaran iyo natiija 3 wasaaya oo ah tamasak bixabli illaah, xariga ilaahay qabso, wattabic ilhudaa, hanuunkana raac, walaa taku bidciyan, mubtadic ha noqonin, iyo natiijadii ka dhalanayso haddaad intaas qaadato maxaad ka faa'iidaysaa, lacallaka tuflixu, inaad liibaanto ayaad mudan tahay. wuxuu leeyahay marka tamasak warqabso, yuu la hadlayaa ayuha sunni, ruuxan sunniga ah oo caqiidada ahlu sunnaha ku socdo qabso ayuu leeyahay. tamasak, walidaalika qabsashada diinka waa lis amray, fastamsik biladii uuxiya ilayk, qabso wixii lagu waxyooday ayaa waxaa lagu yidhi nabiy llahi moxamed calayhi الصلاة والسلام والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع
أجر المصلحين. مرك وهكذا مرك تمسك بليه قبصه بحبل الله حرق إلهي قبصه. حبل الله حرق إلهي محل قوضة وقرآنك واسم من اسماء القرآن. حبل الله بلغو مقعابا، القرآن بلغو مقعابا، الفرقان بلغو مقعابا، الكتاب المبين بلغو مقعابا، الكتاب كلي أيا لغو مقعابا. إنها صدن أسماء القرآن كيكمد هيو مرك تمسك بحبل الله وحد قبستا حرق إلهي. وانا وحكلا صدح بحي آيات القرآن كأهيد وأمره رباني قاه واعتصم بحبل الله جميعا وحد قبستان حرق إلهي. لما أنت حرق إلهي كدغا بمعنى قرآن كقبصده ويدين كان نليسو دجي كدغا. تمسك بحبل الله قبص حرق إلهي واتبع وحد أعداء الهدى هنونك الراع. هنونك وحلولجي ذا السنة ما دام حبل الله يا الهدى وإسرائيلي الهدى هذا وحلولجي ذا السنة ذي الرعوي واتبع وحد أعداء وطريق خدقتا الهدى هنونك بمعنى السنة. وحنا تصيني إن لولجي ذو الهدى السنة إن لولجي ذا وحتصيني خطبة النبي وكفر فرنجري خطب كيسودا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هدي للراعو يودل الراعو وحأبو خير بدن في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي محمد وحال الله صدره هنون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هنون أيال الله صدره هنون كاسي مركل الله صدره نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قفكي قاته والليبان يا لعلك تفلح ذي أيكم عاش ياو وتي آيات فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قفكي هنون كي قراعو تيراني عبسي وما سقناني ما لنت قيامة ما عبسانيو ما هوغي ما تيرانيون يا أيال لي آيات كلا أيضا وحيات فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى من باديو بيو من هوغي يا أيال لي هي مركو حليه واتبع الهدى هنون كقبصو مركو حليه واتبع الهدى قرآن كيبو إنور شيغي السنة دي بالراعي هل كان مهم ومن معتقد أهل السنة والجماعة إن السنة تهي حجة للدليل سنيو إيضا مركاسي هل كاس لو قد ويهي دتك أهل بدعة أمن مكان قرآنيين تلي هذا قرآنيين تو وقوم آمن سن وحا لقا قادنا الدين كقرآن ككلئنو يه ولذلك وعقائد كفاسد كإلنس كإلالي أباهم بكم تهي دين ككلئ أيان كقادنا أيده وكذبوا ديننا ما قادنا يعني قرآننا كما قادنا يعني محايا لقرآنك يا إنو فسرية يا إنو شرحية نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سينكو أغانينا صلاة إلى أفر ركعتها أما سدح ركعتها أما لبر ركعتها أما قرآن باينو شهد. ولذلك قفك سيدوكو عبادة يستهدوصا صنبا وصن محال إلى. ولذلك عمر بن عبد العزيز مركي أوي مالين وكيري وأقيموا الصلاة قرآن ككسو أروري سيدينكو أغانينا كم عدد الركعات إيه هيئاتك إيه أركانك إيه صننك إيه مبطلات الصلاة حقينك أغانينا قرآن إلا ما تفصيليننا تاس أيو ومحي فأفحموا مرك ولا قرأي مرك ولا قعد كذا وحتصينا يا قرآن كأنه حجة يا هي قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وحو إذن لي ماذا النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم راعى قبصة أوقات يلي فخذوه مرك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وركيسي وور وحيا معها ور إسكا أرانا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك ومحي السنة ووحي كلوي وحي لسعته قرآن كلسعته وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ذكري وحلقة وذا والسنة دي waxaan kugu soo dejinay sunna ayaan ku siinay si aad dadka ugu sharaxdo wixii loo soo dejiyo quraankan sharax buu u baahan yahay tafsiil buu u baahan yahay aayado waxa jira kooban oo macnahoodii quraanka uu ijmaaliyay sunnadii ay bayaanisay waxa jira macaani fara badan iyo ahkaam fara badan oo quraanka totally ba aan lagu sheegin sunnada ay la timid istiqlaalan ay iyada ku dartay oo wahyi min Allah iyada ah. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث بقى كسوغنا يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وحال سيي قرآن كإيه يسقو كله يسقو كله معناه السنة القوة
qur-aanka iyo mid lamida ayaa liisiiyey oo sunnadii nabiyullaahi moxamed sal ly slam ah. walidaalika imaamku halkaasuu ka duulaya muctaqadka ahlu sunnaha inuu yahay qur-aanka iyo sunnaha labadaba inay daliil tahay. ahlu bidaca qaar kale ayaa jiro aanan inkirin xujiyata sunna, may inkirin, laakiin waxay inkireen xujiyat khabar alaaxaad. sunnada waxay u qaybsantaa ima mutawaatir wa ima aaxaad. khabar ay soo wariyeen saxaabi ama laba saxaabi ay soo wariyeen oo aaxaad lagu magacaabo, iyo khabar ay soo wariyeen saxaabo fara badan oo mutawaatir ah oo cadad ay mustaxiil tahay inay been isku waafaqaan. waxay yidhaahdeen marka nimanka ahlu bidaca ahi waxaan qaadanaynaa oo caqiidada aan ku dhisaynaa sunnada teeda mutawaatirka keli ah. waa fariiq kale, qur-aaniyiintii maaha. waxay dhaheen qeybtan mutawaatirka keli ayaan caqiidada ka qaadanaynaa, laakiin qeybtan aaxaadka ahi caqiide kama qaadanayna dheh. haddaad fiirisana aglab sunnada inteeda badanna waa aaxaad wa. sunnada mutawaatirka waa tirsan tahay, sunnada mutawaatirka ahi waaba tirsan tahayba ha. laakiin madhabka xataa kumaynan soconino, waxaan u tegi doonaa axaadiis badan oo mutawaatir ah oo caqaa'idkii laga qaatay oo haddana ahlu bidicii ay khilaafeen. waa isku qaban weysay. awal waxay degsadeen, waxay dhaheen waxaan ka qaadanaynaa mutawaatir keli ah. waxaa la helay axaadiis dhowr ah oo caqaa'idkii kusoo arooray oo mutawaatir ah, iyadiina way garab mareen. walidaalika waxaad dareemaysaa qofku markuu baatil uu haysto maalinba meel istiqraar mara, marba meel buu ku duulaya. madhabka iyo qawaacidduu degsadayna kuma socon kara, maxaa yeele waa qawaacid kulluha baatila maa anzala allahu biha min sultaan. wuxuu leeyahay marka tamasak qabso bixablillahi xariga ilaahi wattabic raaca alhudaa hanuunka walaa taku hanuunka waxaan niri sunnadii weeye. walaa taku ha noqonin bidciyan ruux bidci ah, mubtadic ha noqonin, ruux bidcoole ah ha noqonin. mubtadicow maxaa tahay? mubtadic waxaa la yidhaahdaa ruuxa diinta waxaanan ahayn kusoo daray, waxaanan daliil qur-aana uusan sheegin, daliil sunno aynan sheegin kusoo daray. nin baa kuu imaanaya wuxuu ku leeyahay intaasoo wardi akri, war xaggee ku qoran tahay? adigu diin waayo maxaa dhacay, ma iska akhrisid buu ku leeyahay. khayr waayo maxaa waye subxaana allahi walxamdulillah maa la diida. war lama diidayo ee waxaani diinkani waa cibaada. walidaalika ibnu mascuud calayhi raxmat ullah radia allahu canh wuxuu usoo galay masaajidka qowm xalqa ku jirto. qowmkaasi masaajid bay fadhiyaan, hadda u fiirso, khayr bay wadaan, waxay akrinayaan subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo walaa ilaaha ila allah, adkaartii la yaqaanay bay akrinayaan oo soo aroortay. laakiin qaabkii loo akrinayay bay wax ku dardareen. nin baa dhex bartanka u fadhiya wuxuu leeyahay soo rida aan naqaanay wey, sabixu llaha 100 boqol jeer subxaana allah dhaha, ilaahay boqol jeer allahu akbar dhaha, saasuu ku odhanaya. ayib marka wuxuu ku yidhi war waxan maxay ahaayeen? markaasi waxay dhaheen de waa dikri iyo subxaana allahi walxamdu lilahi un baan haynaa. markaasuu ku yidhi ibnu mascuud laba unbaad mid tihiin, imaa anakum calaa hadyin afdal min hadyi nabi sal slam, inaad ka fadli badan tihiin hadyigii nebiga oo dariiqo ka fiican aad ku socotaan, iyo imaa anakum taftatixuuna baaba dalaala, baab baadiya inaad dadka u furaysaan oo bilaabaysaan. waya waxay dhaheen subxaana allah ya aba cabdiraxmaan maa aradnaa ila alkhayr. aba cabdiraxmaano khayr jacayl un bay naga ahayd. dadku soo saas ma dhahaan? sheekh anigu sheekhu khayr doon baan ahaa buu ku leeyahay. igama ahayn bidca la imowe, diin iyo khayr iyo cibaado iyo alla jecel bay iga ahayd. meesha laysaga yimaado waa halka. shaydaanku laba dariiq buu leeyahay. hadduu ku arko inaad shahwada iyo banaanka iyo baxaliya meelaha khariban aad jeceshahay adduunyadu ay ku jiidatay, halkaasuu kugu baadiyanaya, kugu qurxinaya. hadduu ku arko nin ahludiin oo masaajida iyo ku xiran haddaad tahayna diintii buu kuu dhex fadhiisanaya oo waxaan diin ahayn buu kuu qurxinaya, maanta o dhan aad ku cibaadaysanaysa, aad u malaynayso inaad saxan tahay. mana lagaa dhaadhicin karo niyahow waad saxan tahay, ama waxbaa kaa khaldan. markaasuu ku yidhi wakam min muriidin lilkhayri lam yuwafaaq. badanaa meeqaa khayr doon ahayd haddana laakiin aan la waafajinin khayrkoodii. khayr doon baan ahay keliya marka kuguma filna. tiibuu marka ka duulayaa oo walaa taku bidciyan ha noqonin ruux bidcoole ah oo diinta wax kusoo daray. waa ruuxa qur-aanka iyo sunnada aanan diinkiisa ku dhisaynin ee meelo kale sheekh hebel baa yidhi iyo waxaasaan soo gaarnay iyo waxaasaan arki jirnay iyo waa ila quruxsanaatay iyo kashfi iyo dawq iyo waxaa weye qalbigayga ii wariyey iyo sheekooyinka noocaasa qofka raba inuu ku cibaadaysto ayaa waxaa la yidhaahdaa bidci la yidhahda. bidcaduna tabcan bidca ictiqaadiya iyo bidca camaliya u qaybsamaysaa. mid caqiidada qofka ka gasho waana midda ugu xun.
ictiqaadkiisii iyo caqiidadiisii ilaahay uu ka aaminsanaa iyo diinka uu ka aaminsanaa inay ka gasho, iyo bidca camaliya camalkii iyo acmaashii saalixayd uu samaynayey inay ka gasho oo acmaal aanan diin lahayn ama aanan sanad lahayn oo daliil lahayn inuu ku cibaadaysto, iyadana waxaa la yihahdaa bidca camaliya. marka labadiibu isku duuduubayo bidcoolaha noqonin hadday tahay xagga camalka iyo hadday tahay xagga ictiqaadka. lacallaka waxaad mudan tahay oo aad xaqiiqo ku tahay, lacalladan waa maxay? tarajigima waa xaqiiqa waay. lacallaka tuflixu waxaad xaqiiqo ku tahay inaad liibaanayso. waa natiijadii aan sheegaynay. 3 dardaaran buu sheegay: in qur-aanka la qabsado, sunnada lagu dhego, bidcadana laiska ilaaliyo. haddaad 3daas samayso natiijadeedu waa maxay? lacallaka tuflixu, waad liibaanaysaa. waxaa tusinaya liibaantaas qowluhu tacaala alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin. marka laga sheekeeyey qur-aanka iyo dadkii rumeeyey ee qeybka rumeeyey, markii laga soo warramay alla wuxuu ku khatimay aayaadkoodii ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuun. kuwaasi waa kuwa hanuun dushooda saaran, waana kuwa liibaanaya. kuwa liibaanay oo guulaystay adduun iyo aakhiro waa kuwaas weeye. ayib, isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun. falaaxu waa badan yahay, qur-aanku meelo badan buu kusoo aro, wuxuuna ku xiran yahay inaad qur-aanka iyo sunnada qabsato, bidcadana ka taxadarto. ayib, wadin wuxuu yidhi ka diin dhigo, wadin ka diin dhigo, yacni aqim diinaka wactaqid, caqiidee oo adigoo rumaysan, adigoo u cilmi leh, adigoo ku camal falaya. markii lagu leeyay waxaan caqiidee, caqiidadu waan u tegi doonaa. iimaanka iyo caqiidadu arkaan 3 uu leeyahay: waa ictiqaadun bilqalb, inaad qalbiga ka caqiidayso; qowlun billisaan, carabkana ka tiraahdo; jawaarixdiina ay ka muuqato camalkaagii iyo qaabdhaqankaagii iyo noloshaadii siday tahay waa inay ka muuqataa. walidalika wuxuu leeyahy wadin ka diin dhigo bikitaabi illaahi, kitaabka ilaahay ka diin dhigo, wasunani alatii, iyo sunnooyinkii. sunanku waa maxay? waa axaadiistii nabiga calayhi salaatu wasalaam. axaadiistu nabigana waxay isugu jirtaa aqwaal wa afcaal wa taqriiraat. qowl nabiga uu ku qowlay sal ly slam uu yidhi sidaa iyo sidaa sameeya, waa xadiis wey, waa sunna way oo loo baahan yahay in la raaco. ama ficil uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey oo uu maxaa la yihahdaa saasuu nabiga sameeyey, halkaasuu ku tukaday, saasuu yeelay. afcaasha ka dhacdayna waa maxay? waxay noqonaysaa sunna, waa xadiis la qaadanayo in lagu dhaqmo ay tahay. taqriirku waa maxay? in nabiga hortiisa sal ly slam wax lagu sameeyo, saxaabadiisa inay hortiisa wax ku sameeyaan, isla markaana uu u qiro, uusan maxaa la yihahdaa mucaaradaynin. qiriddaa uu qiray ayaa xukun sharci ah, waa sunna nabawiya waay. maxaa yeeley hortiisa wax lagu sameeyey, mana ka hadlin nabiga sal ly slam, mana diidin. waxaa ka mid ah nusuusta tilmaamayso khaalid radia allahu canhu, abaysadii uu ku cunay maa-idadii nabiga sal ly slam, marka uu diiday nabiga uu yihi innahu lam yakun biardi qawmi, waxaa weeye waxaa soo jiitay oo cunay khaalid, soo maaha? ya abeysacgaley maslugaleey waxaad tirahdaba, laakiin teeni wadanka ma aha. sunta badan ee qofkii qooshta maxaa la yihahdaa uu ku baktinaya maaha. waxay tilmaamaan waa nooc ka gedisanaya jaziirat alcarab ku nool wey. weliba maxaa la yidhaahdaa aanan dadka dhibin oo cawska iyo waxyaalo badan cuna, way ka duwantaha la yihahdaa. marka magaca unbaa sheebaha laga yaabaa tii wadankanagii, taasi tu la cuni kara uma eka. laakiin jaziirat alcarab baa arkaysaa, weliba way jecel yihiin, way ka helaan oo mahmaana way ka leeyihiin oo qofkay arkaan inuu xoogaha yara hurdoonayo ama uu waxay dhahaan maanta baashaasaad soo cuntay baa la yihahdaa, show hurdo iyo habac iyo cajis bay leedahay baan u malayn. taasi qofka marka ay ku dhahaan. marka khaalid baa ku cunay maa-idadii nabiga iyo xeeradiisiibuu ku cunay, mana mucaaradaynin. wuxuu ahaa marka taqriir inay ibaaxa tahay, ay bannaan tahay. waxaa ka mid ah inay dhihi jireen kunaa naczil waalqur'aanu yanzil, biyadaadis baan samayn jirnay oo annagoo markaa ilmaha ka yara taxadarayna, maxaa la yihahdaa qur-aankana uu soo degaya. adilada noocaas oo dhan waxa ay samayn jireen. kunaa fii cahdi nabiy baad arkaysaa, waqtigii nabiga ama zamankii nabigaan saas samayn jirnay, mana nalaka nahyin jiro, nalakama reebi jirin. kullu hada marka waa sunnaday ka mid tahay. marka wuxuu ku leeyahy waa diin ka diin dhigo haddaad tahay sunni oo caqiidada sunnada ku socda, fi kitaabi illahi, kitaabki ilaahi, iyo wasunani alatii, axaadiistii, allatii taasoo atad ka timid can rasuuli illaahi, nabi muxamed sal ly slam xaggiisa ka timid. halkaa waa ta'kiid mar labaad waa gabaygan, kii hore unbuu ku dhadhow yahay, laakiin wuxuu rabaa inuu akido axaadiista caqiidada laga qaadanayo
كل حديث أو لسوري معها التي رويت مده أتت بكعبره بمعنى كتمت سدبة أو حقيقة وقتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أحاديث الصحيحة الصحيحة أنا ضعيف كهين أما موضوعاتك لقوا بين أبو النبي أنا نهين كوا أتكدين دجانيسو أيو ليه. طيب والسنن التي أتت كتمت عن رسول الله تنجو بدباديسة بدبادد ومحي رأس مال كان اللي بدباديسة روح مركو قناعسي كجرو هبل ومحي خساره كبدباد مركي اللي يرهدو بمعنى رأس مال كيسي ومحالي أسد كي أما كابيتال كي وقناعسي كب اللابي أيا وبد قبه ولبد باديوي ولذلك الدين كاجي أصل كيسي بدلبد باديسة هذا أنت كودكتو تنجو وبد باديسة نار بتكبد باديسة عذاب أيات كبد باديسة جهنم تكبد باديسة وتربح ولبا وتفائديسة وتربحيسة قفكم مركو لفيه رأس مالك وبدبادية أيو الربح دونا صمح ها انت انا هورت الربح لقارن مركي هوري لفهاقي سيف قري مركا سيف قري سكدب وتربحوا وتربحيسا او الجنة درجة سرى اعالي الفردوس اياد هليسا. طيب انهاس ايو حوغا بحي لبدا بيت عقيدة اهل السنة اي كأمن سين مزدر التلقي دينك حقيقة قاتا وقضية مهمة دينك حقيقة قادتا القرآن والسنة وإجماع سلف هذه الأمة سدح هذا صلى قاضنية إجماع قرآنك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولبا الصحيحة سواء أحادها أو متواترها هاتو إيوه إجماعي سلف هذه الأمة انتاس أيا دين تلقاته وحي كصهره هدوني وحكوش يا شيخ ومحاو الدليل ما الدليل وانا ترى هذا وليه مركي باشو عقيدة قشو ورمحاو الدليل وركلي وما باهنيه إن دليلك اللي قول راعي وسي أد أوغاتو مصدرك الدين كان كقاضنا يسو ماشي وياهي. ولذلك قفكوا إنه إلهي بريا طريقا توصن حبل الله إنه إلهي كدوه سيد القرآن كما قصوا أروري اهدنا الصراط المستقيم نبي عليه الصلاة والسلام وحورنجل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى هنون بإلهي كبري جري سوى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بل وحكم دهيد إنه دعاء دير أخرين جري اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون إلهيو سماواتك الله أبو ريو أذيك يا وام حي قرنا يدتك وحي اسكو هيستان خلاف بدتك ده حجرة ومدني واسخلاف إذا صومها سيدا أحاديث كوعد اهدني لما اختلف فيه وحل اسكو خلاف إله يقول هنوني محي أذيك أيادتك كهنونية أما عدي أدون تطبت توصنا ذا كهنونية مركو قفك الدعوين كأنه كد عيستو سيء الزمن كان يقبض بعده فتن كأي وسواسك سيء يقبض بعده. طيب وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. هل كان يوحور رأينه كقل صفة الكلام كلام كإله سبحانه وتعالى يوحي كعقيدة سيهن أهل السنة وحليه وقل وحاتر هذا أيها السني ماشي وحكو قدرنا وحولها الله يمر والبا روح أهل السنة عقيدة صحة ربائن وقبصة وقل وحاتر هذا غير مخلوق ومد أن لا أبور مخلوق معهن كلام مليكنا الله بقر كالنجأة هذا الكيس مثل أبوري معهن مخلوق معهن له بذلك السداس أي دان الأتقياء دان كالدين دكتموي كعقيدة يشين الأتقياء دتك تقوى أصاحبكها دتك الله كحرنا دتك أهل خشية يالو عبسدها سدا أي دين كدكتين وأفصحوا ساس أيين عديين أو حيكو عديين خطب كودي كلمات كودي دروس تودي محالي إلى كتبتي مؤلفات كي قرين قبيضوا دي ميل والبي وحيكو عديين إن محالي إلى هذا الله هذا الكيسة ويهي كلام الله غير مخلوق مذا لا أبورين وحكم إذا علماء سيدا عدين جرت الإمام أبو حامد الإسفرائيني الشافعي عليه رحمة الله ما نول بوج معه واستاقي جريبا مركز وحو كله جريدتك كلام الله غير مخلوق ورددوا لقيستا هذا الكي إلهي كلام كي إلهي ومدى مخلوق هين مثل أبوري معها سيداس أقادة أو إيغان نقلية أيو أورنجري سيدا وكسورين يا أبو الحسن الكرجي كتاب كالفصول في الأصول عند الأئمة الفحول أيو كسوري وليه إمام أبو حامد الإسفرائيني جمعة والبصاص ودتك وشيء جرو إيغان نقلية وديجري جمعة لأنه ما المها لسكسوا أروره ودتك أي بديهين سي عقيدة سي آفاق ذي أقارته أين أي النقطة
ayib kalaamu malikina markuu leeyahay boqorkanaga hadalkiisa waxaa soo gudagelaya qur-aankii, waxaa soo gudagelaya tawraadii, waxaa soo gudagelaya injiilkii, waxaa soo gudagelaya zabuurkii, suxufu muusa iyo dhammaan hadallada alle uu ku hadlo o dhan waktigu doono uu ku hadlo ayaa waxay soo gudagelayaan kalaamullah. qur-aanka keli gaarku maaha, maxaa yeelay hadalka ilaahay lama soo koobi karo, koobitaan ma laha, cid soo koobi kartana ma jirto. qur-aanka cadeeye qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbi, hadday ahaan lahaayeen bali badaha khad lagu qorayo hadalka alle subxaanahu wa tacaala, waa badaha oo dhan. qul low kaana albaxru midaadan likalimaati rabbi lanafida albaxr, waxaa dhammaan lahayd baddaa khadda noqotay ayaa dhammaan lahayd qabla an tanfada kalimaatu rabbi, inta aynan dhammaanin hadalkii alle subxaanahu wa tacaala. walow ji'naa bimilihi madada, walow ziyaadaad ba aan ku darnay, waa maxay? baddaasi mar walba waa dhammaanaysa, hadalka ilaahay se ma dhammaanayo. waxaa la mid ah aayaddii kale walow ana maa fi lardi min shajaratin aqlaamun, haddaan ka dhigi lahayn buu alla leeyahay jala jalaaluh, arlada geedaha saaran haddaan ka dhigi lahayn qalinno wax lagu qoro. hadda waxa geed dunida saaran haddii qalin wax lagu qoro laga dhigi lahaa. walow ana maa fi lardi min shajaratin aqlaamun waalbaxru yamuduhu min bacdihi 7 abxur, baduhuna 7 kale aan ku darno, maa nafidat kalimaat allah, alle kalaamkiisu ma dhammaanayo. walidaalika kalaamku ilaahay waa waasic wey, kalaamka ilaahay waa waasic, waa kalaam sidqi iyo cadli ku dhisan. watamat kalimaatu rabbika sidqan wa cadla, waa sidqi iyo run iyo cadaalad ayay ku dhisan yihiin hadalka ilaahay. markuu odhanaya waqul gayru makhluuqin kalaamu malikina, boqorkanaga hadalkiisu waa waasic way. marka qur-aankii iyo kayrkiisa oo hadalka ilaahay oo dhan ayaa soo gelaya, waa hadal alle uu ku hadlay subxaanahu wa tacaala. ayib caqiidadu ahlu sunnaha waa inuu yahay qur-aanku kalaamka ilaahay uu soo dejiyey jibriil, uu ku soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qalbigiisa. nazla bihi aruuxu alamiin calaa qalbika litakuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin. waa kalaam jibriil uu soo dejiyey, nebi moxamedna lagu soo dejiyey. kalaamkaasi bixuruufihi wa macaaniih waa min allahi subxaanahu wa tacaala. xuruufta iyo macnaha labadaba alle xaggiisa ayuu ka yimi. walidaalika xadiiska qudsiga iyo qur-aanka maxay ku kala duwan yihin? xadiiska qudsiga waa min allah, alluu ka yimi, laakiin macnihiisa, baynamaa qur-aanku lafdan wa macnan uu ka yimid allah xaggiisa. walidaalika mutacabad bitilaawatihi, qur-aanka markaad ku akrinayso salaada wuu kaa asaxaya, laakiin xadiis qudsi haddaad ku akriso kaa asixi maayo. furuuqday ka mid taha udhexaysa xadiiska qudsiga iyo kalaamka allah oo qur-aanka ah. ayib hadalka noocaasa ahlu sunnuhu waxay qabaan inuu yahay sida aan tilmaamnay kalimaad, xuruuf iyo sawt intaba inuu ka kooban yahay. adiladooda aan sheegi doono. waxaa khilaafay marka madaahib badan ayaa khilaaftay. madaahibta khilaaftay waxaa ka mid ah almuctazila waljahmiya ayaa khilaafeen oo dhaheen hadalka ilaahay waa makhluuq, waa wax la abuuray, waxaashaa wakalla. khaladkuna waxay ka galeen ilaahay maadaama sifaadkii kaleo dhan ay u diidayaan. sifadani sifatu lkalaam waa sifa ilaahay uu leeyahay. sifaadkii kale maadaama ay anfiyeen waxay diidayaan inay baab isku furaan oo maxaa la yidhahdaa maxaa tanna u ogolaateen tanna u diideen. warkii o dhan bay iska soo goobeen, sifaadkii o dhan bay diideen. wa minha sifatu lkalaam. sifatu lkalaamna ma ahan sifa ceeba ma aha, bal waa sifatu madxin, waa sifa ammaan ku dhisan weeye. waxaa tusinaya inay sifatu madxin ay tahay في قصة موسى مركي سامري وعجلك كان ألم يروا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. مركي اسمحوا يري أفلا يرون ألا يرجع إليهم، صح، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وحياله اللقم معارضي عجلك أما الدبقي وسامري إله أقدق بني إسرائيل cuyuubtii loo tilmaamay waxaa ka mid ahaa miyaynan u jeedin bale inuusan ba hadal soo celin karin, uusan hadlaynin, uu yahay wax iska aamusan oo akhras ah. cuyuubtay ka mid tahay. marka walidaalika alla subxaanahu wa tacaala sifatu madxin bay u tahay, inuu ku sifaysan yahay kalaam, inuu hadlayo waa maxay sifatu madxin ayay u tahay. mas'aladan dad badan waxaa laga yaaba inay isweydiiyaan maxaa loo ithaareynaya, maxaa loo kicinaya oo kalaamka ilaahay maad banaga daysaan oo qur-aan inuu yahay maan isaga daysan.
qaar badan baa saas ku dhahayaan ومسألة runtii shaa'iga oo masaa'il badan firaq badan baa ilan ku lumay waxaa ka mid ah firaqa ku lumay nimanka muctasilada iyo jahmiyada aan sheegnay ashaacirada oo zamankani runtii ta'athur badan iyo saameyn badan leh baa ku lumay oo dhaheen qur-aanku waa maxay waa qur-aan kan hadda aan noo muuqdo kii ilaahay maaha saasay ku leeyihiin kalaam nafsi ilan aaminsan yihin waxay dhaheen waa kalaam nafsi oo fi ilaahay naftiisa ku jira wayay dhaheen haddii lagu cabiro in cubira bilcarabiyati fahuwa qur'aan bay dhaheen haddii lagu cabiro carabina qur'aan buu noqonaya haddii lagu cabiro cibriya ama tii yahuudana wuxuu noqonayaa tawraad buu noqonaya haddii lagu cabiro si kalena wuxuu noqonayaa injiil buu noqonaya wahaakada waa la weydiiyo yaa cabirayaa liya qur-aankaas nafsiga aad ku tilmaamteen oo aan lagu hadlin yaa cabirayo waxay dhaheen malakul jibriil baa soo cabiray qaarna waxay dhaheen waxaa soo cabiray nebi maxamed baa cabiray qur-aanka haddan meesha noogu qoran wey ayaa waxay ku leeyihiin malakul jibriil baa cabiray ama nebi maxamed ayaa cabiray luqadani luqadii ilaahay maaha ama hadalladii iyo kalimaadkii ilaahay maaha halkaasay la gaareen marka madaahib badan baa ku lumay lumidda ay lumeenna dowlado ayaa ku taagnaa culimo dhanna waa loo laayay mas'alo marka iska fudud ma aha waxay bilaabatay mas'aladan fi cahdi lma'muun in dadka lagu imtixaano khulafaa bani alcabaas waqtigoodii ilaa muctasim waqtigiisii waathiq billah waqtigiisii 3 boqor ayaa iska dhaxlay iyagoo markaa faafinayaan madhabkan muctasilada oo ah in kalaamka ilaahay uu yahay kalaam makhluuqa iyagoo arrinkaa faafinayaan a'imo badan baa loo xiray xabsiyadii baa buuxsamay caalim ma jirin ilaa waa loo yeeray 3 bay u qaybsameen marka culimmadii markaa qolo marka sidaa ku qanacday ee madhabka faasidka raacday oo qolo yar ahayd muctasiladii intii soo raacday ashaacirada iyo qolo xeeladaysatay oo maxaa la yidhahdaa ilaa man ukriha waqalbuhu mutma'inun biliimaan meesha waa laisdilayaa oo dil iyo waxaa ka socda xabsi oo markaa xeeladaysteen oo sidaa uga baxeen iyo qaar sabreen oo israar sameeyeenoo ama la dilay ama xabsiyada u galeen walidaalika raggii loo xiray waxaa ka mid ah alimaam yuusuf ibni yacquub albuwayti wuxuu ahaa abu yacquub almisri wuxuu dhintay 231 hijriga markay ahayd wuxuu ahaa tilmiid alimaam shaafici ardaygii imaam shaafici buu ahaa bal maalmaha uu maqan yahay imaam shaafici xalqadiisa uu ka maqan yahay cidda uu khaliifka ka dhigta uu ku aamino oo sii wada xalqadaasi wuxuu ahaan jiray alimaam albuwayti abu yuusuf almisri bal imaam shaafici isagoo fadhiya haddii fatwo loo keeno mararka qaarkood wuxuu u dhiibi jiray fatwada inuu ka jawaabo albuwayti calayhi raxmatullah imaamka oo a'immati shaaficiya raggii ugu caansanaa ka mid a ee madhabka weliba shaaficiyada ragga nashriyey ninka number 1 ugu ahaa ayaa waa maxay u dhintay mas'aladan mas'alatu qur-aanka inuu kalaamka ilaahay yahay hayru makhluuqin uu yahay wuxuu ku dhintay fi sijni baghdad xabsigii baghdad ayaa lagu xiray suu u xirnaa ayay nafta uga baxday hal maalinna waa laga kari waayay intii lasoo saaro waxaad tiraahdaa kalaamka ilaahay waa makhluuq dheh waa la abuuray dheh si aad u badbaado diidiyey wuxuu yidhi ummad baa iga dambayso ummad baa i fiirsanayso aan indho u ahay imaamu shaafici madhabkiisii baan matalayaa booskiisii baan joogaa marnaba yeeli maayo ilaa uu sidaa ku geeriyado calayhi raxmatullah waxaa ka mid ah oo caan oo la yaqaano alimaam axmed ibni xambal wax badan la cadaabay iyadoo ramadaan tahay ayaa xabsiga intii laga soo bixiyo ayaa la garaaci jiray jeedalo waxaa isku dabamari jiray rag xooggan ayaa waa maxay si aada u garaaci jiray ilaa uu ka miir daboolmo ilaa uu waa maxay uu ka miir daboolmo salaaddii baa la gaaray tobankii la sugi jiray maa la dhaafay ayib waan khatimaynaa insha allahu tacaala marka mas'aladani waa mas'alo noocaasa darsiga dambe ayaan sii tilmaamaynaa aathaarta ay leedahay siday kusoo bilaabatay madaahibtii khilaaftay kadibna adilada ahlu sunnaha ay u daliishadeen ayaan tilmaami doonaa darsiga kan xiga hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin